xalay 8 habeenimo waxaan booqanay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxa yaalay dhaawacii shalay ciidamada booliiska ay ku dhaawaceen xaafadda Guulalla laba qof oo dhaawaca oo qof haweera iyo qof raga yaalay waxaan istul taagay shakhsiyan anigu ninka ku lagu soo dhaawacay goobtaasi oo yaalay qaybta gargaarka degdega ah waxa uu ninkaasi ka dhaawacnaa labada bowdyo oo halbowluhu go'ay gabadhuna waxa ay taalaa qaybta ICU-ga ee emergency-ga khataraha ah run ahaantii halkaa waxa ka dhacay dhibaato aad iyo aad u weyn oo fool xun labada qof ee dhaawaca ma helin daryeelkii caafimaad waxay ahaayeen dad maxaabiis ku dhax ah iyagoo dulmana ahaa marka hore oo guryahoodii lagu soo dhaawacay haddana dhakhtarkii Hargeysa maxaabiis ku ahaa oo ciidan ku dul ilaalinayay waa falfool xun oo meesha ka dhacay weeyaan runtii waxaanu la kulanay qaraabada iyo ehelada dadka la dhaawacay gaar ahaan xaaska uu qabo ninka la yiraahdo girgira ee dhaawacan wareysi aan la yeelanay waxa ay nooga warantay in lagu waabaristay 6 barkii subaxnimo ee maalintii Jimcaha maalin khayr laba ahayd waa maalintii dadku cibaadeysanayeen boolisku waxay si argagax la u galeen shacabka xaafadahooda deganaa ee nabadqabka ku waabaristay waxay noo sheegtay in rasaas la dhacay ninkeedii la dhaawacay caruurteedina la xirxiray waxa xidhan 17 qof oo ka tirsan dadkii xaafadaas ceeb iyo foolxumo weyn bay tahay in inta dadna la dhaawaco dadna la soo xirxiro shacabka degan xaafadaasi waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay dadka xidhan u soo celiso xorriyadoodii dibna ay u sii deyso ciidanka booliiska waxa ay geysteen fal weyn oo fool xun taadi weyn meesha ka dhacay booliisku ma aha inuu noqdo gacmaha dulmiga in loo adeegsado gacmaha dulmiga ma aha booliisku inuu noqdo waxaan xisbi ahaan dalbanaynaa baadhis weyn in lagu sameeyo ciidanka booliiska waxa fool xumaa cashuurtii ay shacabkaasi bixinayeen ee ay dawladda siinayeen in rasaastii laga soo iibiyo cashuurtoodii in yagii dib loola dhaco iyadoo loogu talagalay in cadawga lagula dagaalamo ceeb iyo cambaareen baan runtii halkaa u haynaa waxa fool xumaa ciidanka weeraray xaafaddu waxa weeyaan ciidanka RRU-da ciidanka waxa loogu talagalay argagixisada shacabkii Somaliland ee ahayd in iyagu difaacaan rasaastii lacagtii laga qaaday la soo siiyay in ayaga dib loogu weeraro ceeb bay ku tahay taliyaha ciidanka booliiska waxa aan isqabanin inuu markuu saldhigyada iyo xarumaha ciidamada joogana uu yiraahdo diinta iyo la kacabsiga hal la barto oo yiraahdo macallimiin diinta bartay saad bartaan keenaya haddana markuu banaanka yimaadana falalka noocaas ah uu ka sameeyaa taliya isba qaban salleene aad baanay ceebtaas ku dul hooganaysaa waxayna ka dhigan tahay waxa hore Soomaalidu tiraahdo waxa la yiraahdaa militarigu indhoodu waxay arkaan cadawga ninkan laga dhigay taliya booliska oo militariga waxaan leenahay ku eegin shacabka waxaad ku eegtaa cadawga dibadda indhahaaga waxa aan dalbanaynaa baarlamaanka gudoonka baarlamaanka iyo gudahoosaadka amnigu in ay u yeedhaan taliyaha ciidanka booliiska weydiiyaan waxa halka ka dhacay su'aalahaasi ummadda laga shaafiyo laguna xisaabtamo taliyaha ciidanka booliiska sababta shacab aan hubaysnayn oo aan sideen wax huba in rasaas nool loo adeegsado waa in la weydiiyaa taliyaha xisbi ahaan ka harimayno baarisna lagu sameeyaa dalbana waxa kale oo baaq ugu direynaa taliyaha in ay ummaddu ka sugayso falka shalay dhacay in aan wax ummaddu qaadan karta aanay ahayn in ummadda uga jawaabo sida wax u dhaceen isagana taas laga sugayaa in ummadda u iftiimiyo ma aha intuu ciidanka amreen oo aamuso ceeb bay tahay arkaas adeer taliyahana loogama fadhiyin luqadda uu ku hadlay iyo waxa banaanka yaalan wax isla runtii maaha aad iyo aad baan uga xunahay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi waxa uu joogaa 3 sano oo afka la sii galay muddaxileedkiisii waxa uu haray 2 sanadood waxa ayaan daraa inay madaxweynaha kaga dhamaatay muddo 3 sano ahayd shacabkii doortay ee bacadka u taagnaa ee habeen iyo maalinba durbaanka u garaacayay ee codkooda siiyay inay baloodhadii ay deganaayeen isagii qoyskiisu ay kala dhamaan laayeen
madaxweynaha waxaan leenahay foolxun bay kugu taarikaas afar madaxweynaha kaa horreeyey weli lama arag madaxweyne iyo shacab isku haysta baloodho qoysaskooda iyo iyaga toona adiga madaxweyne horey ceeb bay kugu tahay waxaan u qabnaa laga siga qurateed ka tagaysa inuu yahay maanta labada sane ku hadhay inaad ku dhamaysan doonto adigoo baloodho dadka kula murmaya foolxun bay madaxweyne ku tahay Soomaaliland cambaareen weyn bay ku tahay ceebna way u soo jiidaysaa in shacabkii madaxweynihiisa ay kala dhamaan laayihiin waxaan ugu baaqayaa shacabka degan xaafadda guul alla madaxweynaha muddadiisu way dhamaanaysaa dalka inaga leh madaxweynuhu iska tagaya way noo harayaan dhulku cid kastoo cadaalad darro tirsanaysa iyo cid kastoo dhibaato loo geysta waxa la xisaabtami doonta xukuumadda dambe ma doonta waxaan leenahay waddankiina u tura nabadgelyadiina ilaashada isku kalsoonaada wixiina la leeyahay kama qaadi karo isku duubnaada sidaas si aan hayna kaga bixi meesaan waxaan idinku baaqanayaa ilaashada nabadgelyadiina cadaaladana xukuumadda ka dambaysa marin doonta cid kastoo gafid ku geystay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh xabad hal su'aal ku weydiinay adoo macsan arrinta dhacdada shalay dhacday ee ciidanka booliska ee shacabka u dhaxaysay ka wadan ahaan ma soo baadheen sase la sheegayo wararku hayaan ciidanka waxaa lagala horimay xabad arrintaasi ma soo baadheen si arrintii loo galo kafuul maya galo kafuul ma aha horta arrinku ma aha arrin ma ka un taagan wax laga wada dhageysto 3 sano soo socday wax maanta arrinta shalay dhacday waxa weeyaan cagaf baa la gelay war soo baadhay ha waanu tagnay meesha waxaana jooga ilaa hadda ciidamo hubaysan baa jooga oo maatidii shacabkii dadkooda la xidhay iyagoo dul taagan waxaan war soo baadhay guryaha la duminay may sideen waraaqii fulinta maxkamadda dumintahay haddii ay sharci u haystaan waqti caadi ah ma lahayn la dumin lahayo la sloogiyay hab argagixisnimo loo golay 6 subaxnimo in dadka la weeraa waxa cadeynaysaa in arrintuuga tahay taas waan soo baadhay runtii maayadka caasimada Hargeysa oo shalay kala hadlay waxa uu sheegay in dadkaasi ay huwaysnaayeen isla markaasina ay ciidanka la dagaalamayeen idinku maxaa ku cadeynaysaa in dadkaasi ay isla waxaan ku cadeynaynaa runtii meesha waa la joogay fiidiyoodo badan waa la daawaday dadkaasi hadday huwaysnaayeen marka hooyada naaska xabadda laga dhufanayay ay xabad nool ku jawaabi lahaayeen dhagax bay siitay dadku shacabna way ahaayeen shacabigeenuna ma hubaysna maayarkuna dambiile waxa weeyaan hawshan ka socota meesha wuxuu ku jiraa faylasha dhulka lagu dhisay rag saxeeb uu ka mid yahay ceeb iyo foolxumo ay ku tahay inuu waliba dadka la soo hor istaago dadkaas hubaysnaa waxaan leenahay maayarka waqtigeeda ma doonto la xisaabtamo doona hadii la yiraahdo aad iyo aad baad mahadsantahay